kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta xogta wararka qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a maxaa ka jiray inuu iscasilayo ra'iisul wasaare xasan cali kheyre guux siyaasadeed oo jira iyo salaanka doorashada Soomaaliya madaxweynenimada uu isku diyaarinayo dhawaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo afka furtay kana hadlay arrimo cusub dagaalka dawladda iyo qorshihiisa gaarka ah ee uu ka dhawaajiyay dhabbihii uu jeexay marxuum Generaal Maxamed Faarax Caydiid oo markan beelaha hawiye ay qaadan doonaan afgembiga lala rabo filla Soomaaliya iyo dhaqaale badan oo dawladda Carbeed ay ku bixinayaan arrintan sidii ay ku suurtageli lahayd saddex sabab oo mar kale soo celisay dagaalka xaaf iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya beesha uu ka soo jeedo oo la kala jebinayay iyo waliba ahlu sunna oo dalab ka heshay Axmed Ducaale Geelle Xaaf qabanqaabada dibadbax bilow u ah duufaanta dawladda lagu inqilaabayo oo ka socda Muqdisho cidda abaabulka leh iyo waliba sida ay wax u socdaan ayaan idinla wadaagi doonaa Ambassador Donald Yamamoto oo ammaan kala duldhacay madaxda dawladda Soomaaliya albaabkana u furay Mareykanka meel uu ka cabsi qabay muddo ku dhawaad 30 sano ah xukuumadda London waxay bilowday in kiiska badda ay u saxiixda Kenya wixii lagu heshiiyay iyo halista ku soo socota Soomaaliya oo laga digayo qodobada dibaddana hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaan idinku soo gudbin doonaa malkiilaha iska leh wargeyska Washington Post oo ilinta cishan waayay kadib khudbad uu ka jeediyay baroordiiqda loo sameeyay sanad kadib dilkii Jamaal Khashoggi oo dalka Turkiga lagu qabtay iyo 7 qof oo ciidamada dawladda Ciraaq ay dileen kuwaas oo ka qayb ahaa rabshadaha banaanbaxyada watay ee magaalada Baghdad ka dhacay intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka warbaahinta xogta wararka daawadayaal saaxiibayaal waa 3 bisha 10 ee Oktoobar sanada 2019 aan ku bilowno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan inuu iscasili doono isla markaana uu xubsiibanayo hanaanka ololihiisa doorashada ee madaxtinimada Soomaaliya sanadka 2020-2021 in dalka ay ka dhacdo la qorsheeyay doorashada madaxweynenimada uu doonayay Xasan Cali Kheyre ka hor waxa la sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya loo dejiyay inqilaab taasi oo dadka qaarkood ay leeyihiin haddii sida ay wax u socdaan ay siyaasad ahaan cakirnaanshiyaha si ballaarato ay macquul tahay isku dhacyo iyo qulqulatooyin siyaasadeed oo dalka laga hadla galo waxa garad iyo odayaal ka soo jeeda beesha murursade ayaana lala kulmay sida la sheegay waxaana siyaasiyiinta ay u bandhigeen in lagu dhabarjebiyo farmaajo oo ay ku tilmaameen mid yoolkiisu uu fog yahay heerka siyaasadeed ee dalka uu ka qaraweyn yahay hogaaminta dalka iyo dadka inuu jiho wanaagsan u horseedo balse uu doonayo in dalkan wixii ka dhacay 1991kii dhibaatooyinka beeshiisa loogu geystay uu ugu argudo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ila ku sugan xafiiskiisa waxay ka gaabsadeen ka hadalka arrintan laakiin waxa wararkan ay yihiin kuwa aad loo hadalhayay saacadihii la soo dhaafay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa macquul ay tahay in arrintaas uu go'aan ka qaato uuna beeniyo iyada oo war-saxaafadeed uu soo saarayo maalmihii dambe waa uu diiday inuu warbaahinta la hadlo oo xitaa waxa la diiday waraysiyo loola ballamay wariyaasha qaarkood inay ra'iisul wasaaraha ka qaadaan balse waxa dib loo dhigay baa la yiri arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira marka xal laga gaaro kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaana la rumaysan yahay inuu yahay shakhsi saameyn siyaasadeed abuuray 2 sano iyo dhowrka bil ee xukunkan uu hayo waxaana wasiirka koobaad ee Soomaaliya ka hor bishii Maarso 2017 siyaasad ahaan aan lagu aqoonin Soomaaliya waxaas uu kasbaday taageero badan isaga oo xitaa ka shaqo badnaaday sida dadka qaarkood ay sheegaan ra'iisul wasaaruhu madaxweyne Farmaajo oo hogaamiyaha dalka ah haddii ay dhab noqoto inuu iscasilo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waa guul u soo hooyanaysa qawaamuurta siyaasadeed ee mucaaradka ku ah falsafada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wajahayso haddaba
arrimaha soo kordhay ayaa waxa ay sii laba jibaarinayaan xilli sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba xasan sheekh maxamuud ay bilaabeen qorshe ay ku doonayaan sidii ay dowladda federaalka ay arbushaad ugu samayn lahayd dhanka siyaasadda loona inqilaabi lahaa. waa hagaag qaybihii hore ayaa daawanaysaan warbaahinta xogta wararka. dowladda Britain ayaa sheegtay inay dhexdhexaadinayso dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo hadda kiiska u dhaxeeya uu ka furan yahay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ muranka badana ah. danjiraha dowladda Ingiriiska u fadhida Kenya haweeneyda la yiraahdo Jani Marriott ayaa gurigiisa waxa ay ugu tagtay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto waxaana ay u sheegtay in wada hadalka uu yahay midka ugu muhiimsan ee arintan lagu dhameyn karo iyadoo intaas ku dartay in dowladeedu ay diyaar u tahay inay dhex gasho arintan. wada hadalka Kenya iyo Soomaaliya oo ay wada xaajood ka dhex abuurto dowladda Ingiriiska muhiim gaar ah ay noo tahay si loo xalliyo arintan. waxaana talaabadan Uhuru Kenyatta uu kala kulmay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii ay joogeen magaalada New York toddobaadkan laakiin waxba kama soo naasacdaanin markii madaxweyne Farmaajo uu diiday. dowladda Kenya ayaana ku faraxday qorshaha ay wado dowladda Ingiriiska haddii wada hadal lagu dhameynayo muranka badda ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya inkastoo maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague dalka Netherlands la sheegay in dhawaan la gudageli doono oo maxkamadeyntii arrimaheeda dhageysiga la gudagalayo. dowladda Ingiriiska ayaa lagu eedeeyay inay wado qorshe ay ku taageerayso Kenya oo lagu dhabarjabinayo dowladda Soomaaliya waxaana laga digayaa halis ballaaran oo arrimaha qaarkood ay macquul tahay baa la yiri haddii aan laga fiirsan in ay god ku ridi karto Soomaaliya qarannimadeeda. dadka qaarkood ee maxalilka ku ah siyaasadda dibadda waxay sheegeen in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ka gaabisay arrimahan socday iyo weliba dadaalka ay Kenya ku jirto oo mid la mid ah dowladda Soomaaliya inay isku difaacda la doonayay aysan la imaanin. warbaahinta dalka Kenya ayaa sidaas la mid ah isgarabtaag muuqda waxa ay siiyeen dowladooda oo ay warar ay kaga hadlayaan muranka badda iyo weliba taxliilin siyaasiyiinta iyo weliba dadka ehelka u ah arrimaha siyaasadda dibadda ay wareysiyo iyo barnaamijyo gaar ah ka sameynayeen sanadihii u dambeeyay. muuqaalbahiyaha xogta wararka ayaa daawanaysaan qeybaha dhexe ayaana isla soo gaarnay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in hanaanka siyaasadeed ee loo dhan yahay aanay xilligan uusan dalka ka jirin. wixii ka soo baxay shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayuuna sheegay inaysan anfacaynin dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in arrimaha masiiriga ah heshiis laga gaaro sida doorashooyinka iyo dhameystirka dastuurka. Axmed Madoobe oo warbaahinta gaarka loo leeyahay ee dowlad goboleedka Jubbaland la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ku qanacsanayn in lagu kala baxo dastuurka iyo weliba sharciga dalka u yaala isla markaana wax kasta ay ku doonayso muquunis iyo xoog. wuxuuna hoosta ka xariiqay in arrintaas xilligan Soomaaliya aysan ka soconaynin anaa ka muruq weyn. wakiilada beesha caalamka ayaa waxa maray ka hadleen gabagabada shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxay ku celceliyeen qodobada ay ka mid ahayd siyaasadda loo dhan yahay oo laga dalbaday dowladda federaalka inay la timaado hannaan siyaasadeed oo heshiis lagu yahay si loogu helo khilaafyada siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada hadda ka dhex jira. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dagaal adag la gashay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya siiba Jubbaland iyo Puntland xilli ay ka hor yimaadeen rabitaanka madaxda filla Soomaaliya. danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa isgarabtaag siiyay Jubbaland oo dowladda federaalka ka dalbaday in ay la timaado xalin degdeg ah si loo gaaro buu yiri arrimaha jira ee doorashooyinka dhameystirka dastuurka heshiis bulsho iyo weliba hanaan lagu wada shaqayn karo oo ay dowladda federaalka la timaado iyo maamul goboleedyada oo la xalliyo mugdiga siyaasadeed ee kala dhaxeeya. muuqaalbahiyaha xogta wararka ayaad weli la socotaan. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa cadeystay maalmo ka hor inuu mar kale wilaayadiisii hogaaminta Galmudug ka soo ceshaday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye uu bilo ka hor uu dhiibtay.
warbaahinta qaar waxay ogaadeen baaritaano dhaba oo lagu sameeyey waxyaabaha sababay Axmed Ducaale Geelle Xaaf inuu ka soo horjeesto heshiiskii uu dowladda federaalka la galay iyo ballamada qaarkood oo la leeyahay madaxweyne Farmaajo waa uu kaga baxay Xaaf. haddaba saddexda arrimood ayaa waxa ay kala yihiin ee Xaaf ku qasabtay inuu mar kale dowladda la coloobo. waa midda koobaad in loo diiday dhamaystirka lacag lagula heshiiyey oo gaaraysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana hore loo siiyey kalabar lacagtaas oo u dhiganta 2 milyan oo dollarka Mareykanka. in loo diiday xubno lagula heshiiyey inay ka mid noqdaan guddiga doorashada Galmudug oo lagu wado in dhowaan lagu dhawaaqo, taasna ay sabab ka dhigtay in uu ka hor yimid qorshaha dowladda federaalka ay rabto. iyo in loo diiday ama la hor istaagay lacag dhan 1 milyan oo dollarka Mareykanka, taas oo ahayd lacaga loo fasaxay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo wasiirka maaliyadda dhowaan shaaciyey, balse Galmudug laga hor istaagay maadaama dowladda federaalka ay sheegtay in Galmudug lacag 2 milyan ah loo hormariyey, lacag 2 milyan kalena la siinayo marka arrimaha doorashooyinka Galmudug ay dhamaadaan. laakiin taasi waa uu diiday, waxaana uu sheegay in lacagta isaga lagula heshiiyey ee hanaankii Galmudug uu kaga tanaasulay iyo midda Galmudug la siinaya ay kala tahay labo, sidaas la ajligeedna ay muhiim tahay dowladda federaalka inay joojiso ku xadgudubka sharciga iyo weliba dastuurka dalka. dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan haddii Xaaf uu dhamaystirto lacagta u harsan inuu kula dagaalami karo ama uu ka soo horjeesan doono qorshaha dowladda ee dhismaha Galmudug ku xiran filla Soomaaliya. waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in dib uu bilowday wadaxaajood u dhaxeeya madaxweyne Xaaf iyo weliba madaxda dowladda Soomaaliya xilli Xaaf uu saacado ka hor telefoonka kula hadlay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, sheegayna in mar kale ay heshiiyaan oo xaaladda siyaasadeed ay u midoobaan, waana uu ka aqbalay Sheekh Shaakir maadaama uu tilmaamay in qudhooda dowladda federaalka ay ku qayaantay heshiis ay bishii Julaay sanadkan la gashay. xogta wararka ayaa daawanaysaan qaybaha ugu dambeeyay ayaana isla soo gaarnay. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa laga abaabulaya sida la sheegay banaanbax ballaaran oo lagu diidan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay xubnaha xisbiyada ay hogaamiyaan ku jira ay abaabuleen sida la sheegay banaanbax dowladda lagu diidan yahay, waxaana dibadbaxa ciwaan looga dhigay waan dul qaadan weynay, waxaana lagu wadaa in dhowaan uu ka dhaco magaalada Muqdisho. madasha xisbiyada qaran ayaana si aan ka leexleexad lahayn u sheegay in dowladda federaalka ay ku xadgudubtay hogaaminta dadka iyo dalka, sharciga iyo weliba dastuurka dalka u yaalana ay sida ay doonto iyada u isticmaalayso. weli si rasmi looma sheegin xilliga la qabanayo iyo weliba goobta loogu talagalay in dadkaas ay isugu soo baxaan, waxaana dhinacyadu ay isku raaceen in banaanbaxa la qabto islamarkaana ay ka qayb galaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud maadaama iyaga aan loo diidi karin banaanbaxa ayna yihiin kuwa xasaanad leh oo dalkan xil ka soo qabtay. dhinaca kale waxaa jira warar soo baxaya oo ku waramaya in dowladda Soomaaliya ay wado dadaalo ay ku istaajinayso ama ay ku baajinayso banaanbaxaas looga soo horjeedo sida ay wax ku wado xukuumadda Soomaaliya iyo hoggaanka dowladda. lama oga sida ay arrintan ku hagaagi doonto, balse waxa la xaqiijiyay in banaanbaxan uu dhici doono maalmaha soo aadan haddii aysan dowladda federaalka si awood ah ku hor istaagin. dhinaca kale beelaha Hawiye ayaa hadda qaaday dhabbihii uu jeexay Maxamed Faarax Aydiid, kaasi oo la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wajihi karto inqilaabka lala doonayo haddii banaanbaxa la qorsheeyey uu dhaco. waa mid bilow u ah oo lagu tijaabin doono dowladda federaalka iyo weliba afgembiga lala rabo. siyaasiyiinta mucaaradka ayaana waxa ay kacdoon shicib abuurayaan, taasi oo la mida kii Farmaajo uu abuuray bishii Juun 2011 xilligii uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahaa oo boqolaal dadweynaha ay magaalada Muqdisho ugu soo banaan baxeen, taageeradiisana ay u muujiyeen oo xitaa ay haween waayeela sheegeen haddii Farmaajo la casilo inay maraakiib ka raaci doonaan badda oo ay dalka ka tegi doonaan. laakiin taasi ma dhicin oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markaas madaxweynaha Soomaaliya ahaa ayaa waxa uu kala dhantaalay awooddii iyo weliba taageeradii Farmaajo oo ra'iisul wasaarenimada lagu qasbay barnaamijkii Kampala Accord in ugu dambeyntii iscasilo isagoo baarlamaanka hor jooga.
balse farmaajo ayaa hadda u muuqday inuu ka aarsanayo sheekh shariif maadaama markaas uu godob siyaasadeed ka galay xilligii ra-iisul wasaarenimada uu ahaa laguna qasbay inuu iscasilo. halkaad warkaasi ka daawanaysaanna waa warbaahinta xogta wararka. bal markana qodobka dibadda. inta la xaqiijiyey 7 qofood ayaa la dilay oo ka mid ahaa dadka mudaaharaadka dhigayay, ku dhowaad 100 qofna waa la dhaawacay kadib markii dibadbax rabshado wata oo ciidamada ammaanka ee magaalada Baghdad iyo weliba dad mudaaharaad dhigaya ay gacanta iskula tageen. tuubooyinka biyaha xawliga u tuurayay ciidamadu adeegsadeen si loo kala ceeriyo dadka. rasaasta rabarka ama cinjirka ayaa dadka lagu kala ceerinayay, laakiin markii dambe waxay sabab ka dhigtay in ciidamadu ay rasaasta nool adeegsadaan. majalada ABC.net ayaa waxa ay baahisay ku dhowaad 400 oo qofood in labadii maalmood ee la soo dhaafay banaanbaxa dawladda Ciraaq lagaga soo horjeeday ay ku dhaawacmeen, dhimashadana ay 7 gaarayso. ra'iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ahayd in xaalad degdeg ah lagu soo rogay magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq, isla markaana ciidamada amray in ay ka hortagaan dadka mudaaharaadka rabshadaha wata dhigaya. guud ahaan daawadayaal intaasan ku soo gabagabeynayna wararka warbaahinta xogta wararka. inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo.